Ramadaan wanaagsan saaxiibayaal meel kasta taafaha dunida ka joogtaan. Barnaamijkan waxaynu ku eegi doonaa muuqaal hore waxaynu ku faahfaahin doonaa kaas oo aan saddex weydiimood idinku weydiiyey, balse intaan u gudagelin waxaan kaa codsanayaa inaad nagu soo birtid haddii aad nala joogtayna aad la wadaagtid saaxiibada. Mahadsanid. Weydiinta koowaad waxay ahayd haddaba yaa dalka laga badbaadinayaa si badbaadada tan sanad walba xilligaa soo baxdaay waxa dalka laga badbaadinayo maysan inta horeba aysan jirin, mise labada biloodee ama bisha doorashadu socoto ee doorashada lagu loolamaya ayaa waxa laga badbaadinaya dalka yimaadaan. sababta sanad kasta xilliga doorashada marka la gaadho la iskugu haystaa waa hannaanka doorashada oo aan daacad laga ahayn wixii inoo qornaa oo la baal maraya. ujeeddada ka dambaysaana waa loolanka la isku haysto codadka xildhibaanada sidii loo heli lahaa. nin kastaana wuxuu xusulduubayaa sidii uu u heli lahaa. ujeeddada keliyuna waa sidii loo heli lahaa xilka madaxtinimada dalka. siyaasiyiinta Soomaaliyeedna badankoodu ma leh dan ummadeed ee waxay isku haystaan waa dantooda keliya, wax dan ahna kama leh duulka ay madaxda u yihiin. waa danaystayaal aan tooda mooyee tu kale aqoon. ku dhowaad 30 sano ayaa lagu jiraa buuq iyo midnimo la'aan. gobol kastaana wuxuu afduuban yahay wax gaara. hase yeeshee Soomaalidu waa isku dan iyo duruuf. xilligan la joogo dalka waxaa ka jira abaar baahsan taas oo saamaysay dhammaan geyga oo idil, laakiin kuwii madaxda u ahaa waxay ku loolamayaan dantoodii. xaalka dalku ku sugan yahayna waxba kama oga oo xaalkoodu waa habarba iska hawhawlee ee lada inoo tuma. waxaana malaayiin lacaga dunida lagaga helaa madaxa shacabka Soomaaliyeed, laakiin taasi ma soo gaadho oo waxaa lagu galaa baratanka kursiga. arrintuna waa halkii laga odhan jiray dibiga doollo dhagihiisu waxsan bay maqlaan balse indhihiisu ma arkaan. tan labaadna waxay ahayd su-aasha labaad waxa weeye nin kasta oo tartamaya ama sanad kasta ninka musharaxa ee tartamaya wuxuu afkiisa aynu ka maqalaa ama ku doodaa inuu dhaho dastuurka ayaan dhammaystirayaa ama qodobada uu markuu tartamayo waxqabadkiisa soo bandhigaya ka mid tahay. si maanta maxaa loo diidayaa? tani waa tii uun oo waa danuuradkii siyaasiga Soomaaliyeed. dhagihiisa iyo afkiisu isma maqlaan oo badanaa waxaad aragtaan madaxda Soomaalida oo markay tartamayaan waxay doonaan ku hadla, laakiin markay xilka ku guulaystaan aan kuwiiba ahayn oo marka dib loo raaco kala noqdaa laba qof oo lid isku ah. dhib kale ma ahee waa ujeedkiisa uunbaa ahaa kursiga ee wuxuu yidhi danka ma leh. tan saddexaadna waxay ahayd saddexaad waxaynu weydiinayaa goormaynu ka baxnaa hawsha? waan ka bixi karnaa haddaynu run isku sheegno wixii aynu ku heshiinayna aynaan ka baydhin. waayo eebba ayaa qur-aanka inoogu sheegay inaan duul eebbe beddelin ilaa ay beddelaan waxa naftooda ku jira iyo ujeedkooda.